barqa wanaagsan saaxiibayaal sida orantiin markasta dunida ka joogtaan sida ka warqabtaan maanta waxaa jira ciyaaro badan balse ciyaaraha laba qayb ayaan u kala saari doonaa mid showbid ah oo 6 kooxood ah u jeedaan iyo mid kale aan soo sameyn doona hadhow camal oo odiskeeda badan yahay hadda kadib saas ku socon doona laba door haday noqoto saddex door haday noqoto muhiimadu odisk inuu bato ma ahan muhiimadu waa in markasta guusha 100% loo dhaweeyaa marka hadda kadibna saas aan kala socon doonaa mid showbid ah oo 90% 100% isku mid kale odiskeeda badan iyadan aad looga soo shaqeeyo guusha 95% 96 la dhihi karo la filan karo idinkana inaa ila aragtaan ila qiimeysaan fadlan video ku soo gaaro daabo sababtoo ah waxay tahay video inuu ku soo gaaro waxay ka saacideysaa inaad fahamto iyo inaad hadda isdhaahday qof ciyaaro waa daawataay asalaada kooxdaas awood badan inaad ka bedelato ee hadhowtana guusha ay ku rumowdo markaas oo kale 4 daqiiqo 5 daqiiqo video la soo duubay YouTube intaas waa daawataa Facebook intaas waa daawataa 4 daqiiqo oo 5 daqiiqo wax ku fahmi kartidna ha ka gudbin badan asxaabta waa arko way gudbiyaan waxaas loo baahan fadlan daabo marka shaxdan waa shaxda koowaad ee showbid ah ma waxa ugu horeysa Arsenal iyo Bournemouth marka Arsenal ayaa 100% awood badan Arsenal maanta 500 600 xataa waa lagu aamin qabi karaa sida aan fikirkeygu yahay kooxdan ka awood badan Arsenal ilaahay ka sugo laakiin awood ay leedahay in kooxaha la dhigi karo waa laga badi karaa ma because hadda shaxda ugu dambeysay kulan kamid ah oo 20 door saarneed kooxda 20 ka door saarneed badisay waa wax inta badan dhaco laakiin Arsenal si hadda qiyaasa ila ma ahan Arsenal inay badi doontaan arjayna sidoo kale FB Stuttgart iyo Bayern Munich sidoo kale inkastoo Bayern aan marka hore aan rabay inaan double chance dhaho laakiin waxa isla xogaa odiska ka sii yaraan la Bayern way ka awood badan tahay kooxa ugu awood badan ee kaga jirta horyaalada caalamka dii la dhaho iyo horyaalkeedaba marka sidoo kale kooxdan oo Russia Premier League ka dhisan Zenit Saint iyadana sidoo kale soo u jeedaan kooxda awood ay leedahay horyaalkeeda iyada ugu awood badan iyadana sidoo kale waxa leenahay ayada badi doonto guud ahaan ciyaartani waan ku kalsoonahay inay inta badan marka kooxdan ayaa iyadana sidoo kale soo xulanay inay badi doonto wax kale ku sii xiga Paris Saint-Germain iyo Nantes Paris iyo Nantesna caawa 100% Paris iyo 190 sida la filayo Paris inkastoo xilliga qaar iska taa laakiin awiga ku xunta la home ku fiican tahay marka sidoo kale waxaan u soo xulinaynaa inay Paris Nantes ka badi doonto caawa guud ahaan ciyaartani kulanka kale waa AC Sparta Prague kooxdan qorantahay iyo Top League kooxdan qorantahay oo Czech Republic ka dheesho marka Sparta Prague ayaan rajeynaynaa inay iyadan sidoo kale badiso odiska u jeedaan 9 door saar halka 5 door ay saaran tahay marka wax walba ciyaar laakiin waa ku kalsoonahay inay badi doonto waxa ugu dambeeya Rangers iyo kooxdan kale oo sidoo kale Scotland ka soo marko Rangers waa horyaalkeeda waa kooxaha ugu awood badan kaga jirta Scotland Premier League marka sidoo kale ayadana waxaan u soo xulantan marka 6dan kooxood ayaan guud ahaan shaxda koowaad u soo xulinayna odiskeedana wallahi muxuu 4 door ku dhawaad waay marka maadaama ciyaar badan ay jiraan waxa ka reebay Manchester City aan ka reebay waxa ugu reebana Newcastle oo buuxsa marka kulan waxaan ku soo dari doonaa waxaan ku yiraahdaa kula shaxda labaad ku soo dari doonaa shaxdan kuwa showbid aan u qaadanayna sidaas ila socda fadlan laakiin daawo markasta ku celiya daawo markasta daawo waa muhiim inaad daawato marka saaxiibayaal waa mahadsantiin